انت arrintaas galortu waxaan ii cadaynayaa dad qaar ana hadda maanta magac ayaan wataa magacayda magacaya ii weeli oo nin sheekh ayaan ahay oo sheekh mukhtaar leeyahay dad qaar waxa laga yaabaa inay leeyihiin war ninkan waa culimo waa sheekh siyaasadda muxuu ka rabaa taas ayaan rabaa in aad wax yar aan iga sheego siyaasadda iyo diinta isma diidayiin waa laba isla socota tolka sharafta leh odayaasha sharafta leh nin walba oo meeshan soo xaadiray sharaftuu leeyahay maqaamkuu leeyahay ayaan ku salaamayaa salaan la isku salaaman waxa ugu fadli badan salaanta islaamka ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ugu tiragalay ahlu jannada inay isku salaamaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh saan hore u sheegay nin walba maanqaadkiisa ku salaamayaa tan labaad markaan kulligiin aan ii mahadceliy kulligiin waan ii mahadcelinaa si guud si khaasadin waan ii mahadcelinaa waxaan ka bilaabayaa odayaasha sharafta leh nairobi iga soo raacay danahooda soo xiray diyaarad soo galay ayaan ka bilaabayaa waxaan ku xijinayaa ragga odayaasha awiyaalkii ay ku jiraan adeeryaalkii ay ku jiraan wax ila facsiman ay ku jiraan qofan adeer waayan ku jiraan kulligiin waa ii mahadcelinayaa dad qaar waxaa jira nairobi ka xagga jiray oo waxaa waaye xoolo la tagay oo daraadday u soo noqday oo diyaarad u soo raacay oo inay isharfaan diyaarad u soo galay aykan mahad khaasaan u celinayaa tolka abaartan bahan oo ilaahay u bari doono subxaanahu wa tacaala uu roob inuuna sii ka tuugayna danahooda soo xiray xoolahooda saakii qaarkood oo ciidan fiican ay ku ogeen ka soo tagay idinkan aadan igu mahadcelinaya dadka Mandera iga imaaday ilaa Saala ilaa Waranqara ilaa Warguduuda meel walba dadka iga imaaday waa in salaamayaa aadna igu mahadcelinaya gabdhaha diyaalkay ay ku jiraan ayaalkay ay ku jiraan walaalahay ay ku jiraan inaa wax adeer waa ku jiraan kulligiin idinkana aadan igu mahadcelinaya walaalayaal intaas ka bacdi magan Allah intaas ka bacdi insha Allah taala muraadkii aan gooshan u dhigay waan u fiday inaan in sheega ayaan gudugalayaa talow Soomaali waxay tiri dhag mahadlaan ay dheregtaa inaas wax maqasheen oo dhigiin wax ku soo duuleen hadda ka hor inaad maqasheen laga yaabaa Soomaali waxa kale oo tiri bilis horteeda ayaa loo barxaa hadda waxaan igu yeeri maadaama bilis aad waltihiin inaan hortiina igu barxa wixii jira in sheega dhagtiina isku qaadatiin walaalayaal anigoo mukhtaar waxa soo gashay hawaa soo gashay inaan soo istaaga MB-ga lafay sanadka soo socda sanadka ka dambeeya 2027 oo dhowr bilood ay naga xigta ilaahay subxaanahu wa tacaala ninka uu gaarsiiyo baa gaari doona kii ilaahay ugu tirigalan uu tagi doonaa nin walba horta taariikhda meesha u joogto ilaahay og laakiin waqtigaas hadduu ilaahay naf igu gaarsiiyo oon wala gaarna insha allahu tacaala xilkaas inay waxa waaye aan qabto ayaan isu soo istaagay maxaan isu soo istaagay marka sababta maxay tahay mihi inta dhalinyar oo akhrisatay ninka ugu caqli badan mihi ninka ugu aqoon badan mihi ninka ugu daaweyn mihi waxa waaye waxaan isu soo istaagay ayaan in sheegaya talow inta arrintaas galortu waxaan ii cadaynayaa dad qaar ana hadda maanta magac ayaan wataa magacayda magacaya ii weeli oo nin sheekh ayaan ahay oo sheekh mukhtaar leeyahay dad qaar waxa laga yaabaa inay leeyihiin war ninkan waa culimo waa sheekh siyaasadda muxuu ka rabaa taas ayaan rabaa in aad wax yar aan iga sheego siyaasadda iyo diinta isma diidayiin waa laba isla socota qarniga 17 hadda waxaan ku jirnaa
qarniga 21 aan ku jirnaa 4 qarni ka hor qarni oo 100 sano 4 ilaa 5 qarni ka hor ayaa waxa soo baxay niman calmaaniin la dhaha diin aan lahayn oo diin aaminsaneen nimankaas ayaa waxay keeneen fikir ah dawladnimada iyo diinta in la kala saaro separation of religious from state wax la dhaha dawladnimada iyo diinta in la kala bixiyo culimada islaamka waqtigaas joogay way la dagaaleen way radiyeen waxa way meel ay ugu soo noqdeen waxayna cadeeyeen siyaasadda iyo dhaqanka iyo sharci islaamka inay isla socdaan daliil ay yimaadeen maxay tahay nabiga sallallahu alayhi wa sallam khayrul naas kullihim u khayr badnaay madaxweyne ayuu ahay miyaan soo diideynaa dawladda islaamka ayaa soo dhisay ugu horeysay nabi maxamed sheekh ayuu ahay oo culimada dadka masaajidka ka qudbaysa oo masaajidka dadka ka waanaysa asaga ayuu ahay safiiruu dirsan jiray ambassadors uu dirsan jiray oo nimanka waqtigaas leesahay Rome iyo Furs niman lahaa leesahay nimanka European loo yaqaan maanta iyo nimanka kabtaasi Iran daga ayaa isaayeen dawladda islaamka ambassadors waxa la dhahay appoint garan jiray oo dirsan jiray nabi sallallahu alayhi wasallam lida siyaasadda dad maqashiin iyo sharciga islaamka waa laba isla socota anaga maanta muslimiin ayaan nahay Kenya aan ku noolnahay siyaasad laanteed ma noolaan karna nolosheen ayaa ku xiran marka ninka kala saara diinta islaamka iyo siyaasad waa inuu shariicada si fiican horta marka hore u fahmo oo diinta la isku wada ay u baahan tahay siyaasadda iyo sharciga baarlamaan la gala Allah subhanahu wa ta'ala quraankiisa wuxuu ku leeyahay wa amruhum shura baynahum soma waa in laga tashada wixii soo darsaday waa in shuuro laga qaato oo la iska wareysto meeshaas had markii la bedelo English parliament waa meel la isku imaado arrimo looga tashado horta arrinta shuuro hadaas maqashiin iyo baarlamaan oo isku mid hadda Sacuudiga baarlamaankooda waxa loo yaqaanaa majlis shura ayaa loo yaqaan ayagoo aayadaas ka soo dhambalay wa amruhum shura baynahum ayagoo ka soo dhambalay baarlamaankooda waxa loo yaqaanaa majlis shura marka baarlamaan quraanka ayaa lagu sheegay oo in lagu tashado oo arrimaha dawladda looga tashado waxa waaye sharciga islaamka ay waafaqsantay walaalayaal waxa kala jira ana shakhsiyadeeda maxaan soo istaagay tolka wadanka ku nool murloweytaan Soomaali weyn gaal iyo wax ku nool wadankan inaan isbedel u keenno oo waxa waaye aan u shaqeyno ana codskanahay Allah subhanahu wa ta'ala aayad quraankiisa ku sheegay nabiyullaahi Yuusuf alayhi salaam markii xabsiga uu ka soo baxay la jeelay qisidiisa dheer jeelka la gilay uu ka soo baxay oo ninka boqorka ay uu riyooday riyada nabiyullaahi Yuusuf uu fasiray keen u dhahay waa loo keenay maxaad u baahan tahay dhaqan ka dhiga wuxuu dhahay waa nabi ogaada ninkaas wuxuu codsaday in laga dhigo wasiirka maaliyadda ee dawladda boqortooyada markaas jirtay ij'alni ala khaza'in al-ard inni hafizun alim ayudi waxaad ii dhiibtaa qasnada wadanka iyo adduunka markaas yeelinaad ii dhiibtaan raba maxaa lagu dhiibaa sababta maxay tahay inni hafizun alim mid waxaan ahay xoolaas xifdinaaye tolkan xifdinaaye wadankan xifdinaaye cilmigeedan lahay ayaan ahay nabiyullaahi Yuusuf qabiil kuma faanin heelan ka dhashay ma dhihin heela waxa way wata ma dhihin laakiin wuxuu ku faanay Allah subhanahu wa ta'ala wax uu siiyay ayuu ku faanay inni hafizun alim ani mid xifdi ayaan ahay cilmigeeda leh anina hadda waxaan leeyahay tolka meeshaan isku imaadayo hadaas wax ay dhiibatiin inni hafizun alim insha Allah ta'ala xafiidkaas culimadu waxay dhahay laba shay waa soo gali xifdi xoolaha guud aad xifdisid iyo xifdiga raaciyada aad xifdisid labadaas waa soo galaysaa inaad raaciyada ilaalisid aad u ilaalisid nin walba aad ogaatid dhibku uu qaba
haddaad wax ka qaban karta ilaahay kula ogyaad ka qabatid wixii tabartaade waxaan tabar reen liskuma eedaay waxaan tabar reen liskuma eedaay cilmigeedan aad leedahay loo baahan yahay walaalayaal cilmiga wuxuu u baahan yahay cilmi dunawi iyo cilmi aakhirawi labaduu u baahan yahay kan dunyada inaad taqaanid wax ka fahansan tahay kan aakhira oo sharci islaamkan aad wax ka fahantahay taas waa in leeyahay tan labaad waxaa kaloo in leeyahay talow iyo inta na arkaysaba waxaanu isu soo istaagnay suu Allah subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa uu ku sheegay laba shardi kale ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku sheegay labadaas meelna waa laba maqaam oo leadershipka iyo madaxtinimada loogu baahan yahay nabiyullaahi sulaymaan calayhi salaam markii uu waxaa waaye balqays uu keenay shimbirkii u soo warramay nabigaa tahay ummad waxaan arkay u dhahay qorraxda u sujuuday nabi sulaymaan uu diray say wax u socdeen naagtii balqays lahayd oo boqortooyada haysatay waxay dhahday waxaan u tagaa nabi sulaymaan warqadii u soo qoray innahu min sulaymaan wa innahu bismillaahi arraxmaani arraxiim allaa tacaluu calaya waatuunii muslimiin ayuu dhahay inaad ii imaadiin idinkoo iska firinayn oo isweynaynayn inaad ii imaadiinaan rabaa naagtu waa soo baxday jeeshkeeday soo qaadatay nabi sulaymaan ilaahay karaamaad iyo sharafuu siiyey wuxuu dhahay waxaan u baahanahay ayukum ya'tiinii bicarshiha qabla an ya'tuunii muslimiin wariyaa ii keeni dhahay kursiga carshiga waxaa la dhahaa boqortooyada kursiga ay ku fadhiistaan wariyaa ii keeni karuu dhahay boqortooyadaas balqayso ay soo socotaa kursiga ay ku fadhiday yaa ii keenuu dhahay inta iidi isoo gaarin yaman ay ka soo socotaa yaa ii keeni kara waa lagu tartamay baasha qaala cifriitu min aljinni ana aatiika bihi qabla an taquuma min maqaamik wa innii calayhi laqawiyun amiinu dhahay anaa kuu keenaayuu dhahay intaad fadhigan ka kicin nabiyullaahi sulaymaan anigaa kuu keenaaya maqaamka aad fadhidaad kicin anaa keenaaya cifriitu min aljinni jinnig mid ka mid waa laakiin muxuu ku soo khatimay isagan ma dhihin anina waxaa waaye saasi saasaan ahay reebalan ka imaaday ma dhihin muxuu dhahay wa innii calayhi laqawiyun amiin mid awood ayaan ahay shaqadaasaad ii dirsanaysa kow laba amiinun mid amiin oo xifdina ayaan ahay kursiga boqortooyada markii lasoo qaadaayo waxay leedahay waxyaalo badana ku tacalluq waxyaalo fara badan ayaa inay kursigaas uu ku jiraa laga yaabaa dahab leh oo xoolo kale leh laakiin nabi sulaymaan cifriit muxuu dhahay wa innii calayhi laqawiyun amiin awoodna waa u leeyahay oo jirkaydu waa u leeyahay oo xooggaas waan hayaa amiin u ahay sulaymaanow oo meeshaas wixii allah wixii aan ku arka anaa waxba aan ka fargelin ayaan kuu keenaya walaalayaal ani xilkaan waxaan soo istaagay inaan tolka wax u qabta waxaana leeyahay wa innii calayhi laqawiyun amiin mid awoodo waa nahay mid amiinna waa ahay lagu aamini kara xilkaasna talo waa ahay taasna waa taas isla qawiyun amiintaas aayad kale suuraddaas ku xigto suuratulqasas ay ku soo ortay nabiyullaahi sulaymaan iyo nabiyullaahi shucayb gabdhihiisa markuu dirsaday nabi shucayb xayntii roo ariga wadeen maalintii markay biyaha tagaan way ku soo daahi jireen galabta casr gaabadka ay imaadi jireen gabdhaha waxaa dhalay shucayb maalinta dambe riyihii yare waxay keeneen hergelay keeneen dhaqsay keeneen aabood markaa oo liyaaba wuxuu dhahay maanta waa soo dhaqsateena maxaa dhacay aabo waxay dhaheen waxaan aragnay zamaani markaan erga ka ridayna meesha malkada aan ka ridayna dhagaxa ku gudbanaan jiree nin ilaahay awood uu siiyey ayaa naga qaaday dhagaxaas oo erga dhaqsaan soo waraabsanay maanta ninkan yaa waaye waa muusa calayhi salaam warkay uu rameen aabood markay uu rameen dumarka allah subxaanahu wa tacaala waxaad sii wax la IQ maskaxda waxaa jirta baal IQ la dhahaa oo dad say u kala maskax badiin lagu fiiri IQ-ga dumarka waxaa lahaa waa ka IQ badihin ragga si generally dhakhaatiirta maanta ay sheegaan waana lala tashadaa oo lama daraabo dumarka nabi sallallahu alayhi wasallam saad ogtihiin markii uu xudaybiye imaaday oo soo cumraystay oo kufaar quraysh ay ballan galeen uu dhahay marka saxaabada ay gadoomaan tribkan ay madiina ku soo noqdaan oo sanadkan ay soo laabtaan lagu ballamay xoolihii wuxuu dhahay nabi sallallahu alayhi wasallam qowraca waa xalaal noqonaynaa saxaabada xoolaha waa ku adkaatay waxay dhahay yaa rasuulallah anakoo meeshaas ka nimaanay
وما أنت دون ماشي هو ما هذنا كفار قريش هنا العليان أرنت صحوها أمر كذا المجرمين كنا سواي نبي حولة تشهد سلمة يعني دمر كقيمة إسلام كجوجانا إن شيء هيا محسو بياوده هذا ديما إن عندك صحابة القرآن أو ملح الحيرة النبي قلنا ملح الحيرة حولنا قورعة إن لو عمرتها كعد بالله إذا تحقق في النساء هذول طالبوا حيرة نفك أنا قورعة ما بيجي أصوات أحد مرة وحال الله صحابة السكيمة إيه مديها يسكول لين قارين صدق وحيرين الحياة أغلى يا سياكني سلمة تنتي عمل وايه نبي الله شعيب جبتي سيحيدا هدي قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين أبو حنكاعد سنينا نكاس إنا أجر نودكتو إيجار نودكتو شقالة نودكتو محايلي وح شقالة لقدكتو حول لو آمنة دولدي وح والبو حول لو آمن وحاو خير بدن القوي الأمين نينك قوي جو تبرت له شغله لو ديبه وإنه تبرت له هذرت mentally and physically fit وإنه قف كنوط مسكحيا يجير كبا وإنه شغله الله إدمنا أتقبل كره شروط اللي في ريه كم تمدحت المثل اسم الآية دي وصون قتل القوي الأمين أنا مركز طلو أنا وحين سؤال كي أنا وندتك علم بنين أنا هو عقل بنين بل يرتوي تانك وأنا في عيده إلا سبحان سؤال كي إن نقول دون إن شاء الله القوي الأمين نينك أقول داس له طلاب إنه وقفته أمين له ولا اليوم باشان ما يحتني ماذا ووريكت تلك ماشان ويتانك ودن كان دقنا كرسي جالس أنصحنا نول بن حق أيقول لي سدل لي يقارو له نين أن شيئين كريم ملها نول بحق أيقول لي Soomaali waxay tiri geed hoos ayaa laga fuulaa geedkana maanta hoos fadhiina gisreebka ninka korkiisa ka yiraahdo kor kama bilaabanayo hoos ayuu ka bilaabanayaa godobtaan waxa uu yeeri ana wiitaan wax ka raba inay yihiin godobti hoose ibaali lahay tolka igala hadli lahay ii geeyni lahay wax ii toogi lahay inay tihiin ayuu yeeri tolow wax walbaba dacwada Allah subhanahu wa ta'ala maanta nabiyada la soo diray oo gaalada la gaarsiinay ayaa la dhahnay Muhammad cashiiradaada sokoyaa ka bilaw dacwada wa anzir cashiirataka al-aqrabin sameen ayad war waxa la qoyskaada hoose ka soo bilaw nabi Muhammadow leena qoyska hoose haday kula qaataan mubda ay asweedatid haday kula qaataan waxa wada ku leeyahay karaan ani hadda kursiga saan u sheegay tolka ayuu ka dhaxeeyaa weytaan ayuu ka dhaxeeyaa inaan waxa inga soo bilowday cashiirada hoose aad tihiin garab ii noqotiin warfay xirsi leegeeye xirsi arfax leegeeye cabdi horseen aad ii geysiin marlu weytaana leegay tolow kabacdina Soomaaliyeyn wadankaana la degta gaal wixii wadankaana la dega inaad leegeeye garab aan hela ليلة السعودة ليلة هذه مركان واحد هذه من لما شيء يصوبح دونت أنا كرسي هلنا يصوبح دونت ما يمس كده أنا كرسي واحد مع هلنا هذا تلقينا فيه ورفع حرسي وتقنا أما أبقي حرسي وتقنا أما أبقي عبدي أما ويتان فاتح لله وانقوقنا عنه وهل يجي الأفر فاتح حمد وربه حسه شرف له حشمد له قدر له داهل لنا وطلع أنا كنا تحت على تلو وطلع نا تحت على تلو حين قول لذي أنا سويتين كاس ويتان كان جهر ري سلسلة له إن لا يوصل ما كرسي اللي يقعد صلا وحاك لو شيء جاية قولش ما أنت عارف لنا قول أيا كهريسي بل قول يالي يريرنا وكهريان واحد ما أنت لفي أن بيك صوبه مهن نقول بحالله ديجي مسج ودغرتيس يا شاي ماشي ان كنا ولاي او نيروبي هيد إذا حكا أقدواي تلك جوغي أي أقوغلدي تاريخ 26 بشي كوباد سنة كان 2025 أن كجرنا وكل 10 بلود لصوت ضعفي أي نيروبي أن قوغلي رأبي يسكوه يري
والله هاللي وأوجو شيء أجر يا شيء قار ماشان فدي وأنا الجوبن أبو يالك قار ماشان فدي وجوبن ماشي أيام جوجل ذي أنت الكل يري ونوشة جنمي هو هندا وصور استخاريستي كرسي جانين عن دونان ربا أنا أصغر بين قطين أنا بحناي تلك وقعنا فرنا ليه سودوي هذا ليه مهد علي نن رجل وحلا هو قرب عنا هاي واكم مقلني تلك أنكو جينينا وأنت هذا هلا ده هاي تلك أنا وحسوب بدي هاي ماشي لدها لفي قبل كسوب بدي ماشي صعد وحكرت هذا أنا واكم مقلني application كوا قبلني تلوين هنا وتجينا ما أنت هذا أنت جنا هي ماشان وما أنت تلوين دي أبكي محمود الفاي ماشان وقاشيسي ودياشيسي رجع حوا جرجويس كاي رجع هذا لقى لقى دليل هاي أما لقى وضل هاي ماشان وافد إياه تلكين أنت وكبدين هاي ظروف تجرت مانته أن يوم هاد عليي إن أديسو حاضرتين شركان أياجرت أنت مقالنا أنت جوكتا كوكيل له نور بولال كيس أدير كيس أبو كيس أيا فدية وكيل أيا سكن قنينا ما أنت حنوفدية ولا ليال أنجوش عندك تي إن أدي قادين أدويتان يقول سنتين سلسلة أنشأ يكوصل ليقول سما أيا وحواي أيا جوش عندك تي جوشان جويال كروير يراكو رئيسان شيء وحاجرتي أوغاسك أديركي أبي عبد الناصر مع الآدم وأنا كنوعه أوغاسك دناروبي هدانا هاي دغو عدة أصير والله تشري دغالك كلام أصير هم قدوا ما دام أوغاسك أسي هاي دغالك كلام في ناروبي نسي خاص إسي عام نقوله تشري تاريخ دان بشان إن قبصدا طلع أياه دموع حاني كلجي أنقصتي ما هين ترو وترى أن كنت شني وان فدي سني بشان لي قبتي إن تلك أن كل مية إن مرة كديان ربيعي حوجها وروب لاني وحبا جري وحاجة بالروب هلا أسك أنت يقول دوق يالك حق جوان والله الله إلى كشما هرتا كقال وقانت هذا أضياش في نيروبي متنا كقاتين والفديستي تاريخ دان بشان أيك إيسو عيما ولا تاريخ داس فديسة رابيو ورك عن كل إيراني أنا أركض سوقنا نذا وحنكو سوقنا نذا رابيو إن كرسي أسليل هذه لي قاعدة سان شيء بورفاي حرس ليجي أبكي حرس ليجي أبكي عبدي حرس ليجي أبكي ويتان ليجي سوماليين وح ماشي أنا اللي جوجل ليجي وح قال له ودن كان جوجل ليجي وكرة ودن كان كله إن ليجي أنا سائم بلان قاضي هذا الله سبحانه وتعالى يسهله حلكاس يسهله إن المجعين أد حماني دونين مجع تلك ويتان أد حماني دونين أو أنت أد رق قبته من شيخ قبته عدالة عندك كم معمولنا سنان أنكم معمولنا نول بنا حقه كلية كرسي جاس إيه وحاول وإحنا سومر دونا نول بنا إنه percentage كيس كهلي دونا إيه وقفنا دوسوا بالمرين حكلهم شيء هنا ماشان إذن كهادو حلقية بعدك إنا يمرلوا يتنبس كهذا الحياة دتك لو حاجر مرلا عن هن أو حقوق الأولى هاجر كرسي كان حقوق له قالوا وده كان جوه حقوق ينقولين سمو قديم حقوق ينقولين سو النبي صلى الله عليه وسلم الشيء قفنا حقوق له سد حق قفنا حقوق له لا حق قفنا هل حق حقوق له هذا النبي صلى الله عليه وسلم وقال يدم حيين نينك سد حد حقوق ده إسكاله وانينك مسلم كه قرابة وانا جيران كه سد حقوق أيوة ليه كان لوضع حقوق ليه واي وكان حواي مسلم كه جيران كان آتهين كان هلك حق لهم هو هاي وقالك جيران كآتهين قالك ودن كان لدقن سومالي مسلم إسكده ويه سوماليين وحينوليهن حق ينوليهن ويه ويتامنا سد حق ينوليهن ولا لير إنان حقوق دا سمرك دادك أسنة ديف نقوتها دب نقوتها هذا دب ماذا ما أنت مجي ماذا دادك نلوح لو عافينا ما يجري دادك ولا سما
هذا الله سبحانه وتعالى ونوقو ليسين إن شاء الله تعالى إن أنطلق سنة مرويتان سنة نول بعد ننكر حقيس أدقادنين وكد ذلك وحكى إن شاء الله تعالى وروى ودنبين دونان ما أنت يقولش بالله تهي هذا الله سبحانه وتعالى ونو قدره إن دمرك إيدا لن يرتا إن نول بقى ما أنت أنا كعقل جاينه رأي حمي تبر ماشي أي نجف ريست وماشي هذا إن أنا أي كان واحد كهرسن دونين أو واحد كجابسن دونين وحقوق دول أي كلهم national government county government أي كلهم إن نحقق إن شاء الله تعالى نصود عندهم ولا ليان سومالي حيتري هذا البدن هان مبوحش أنا وركي دوكاس أبا وقادة هليجي عليه طلق هليجي جرانجرت عن شيء هلا مري هدان كرسي سهل لنا وخير هدان وحو إجنا لصوصي وطلع عن قادنا وخير أنا قعنتينا يا كجرا قعنتينا يا نقول هاي ويحسكت لسين ديارا نواهي نين وحالة بهاي رتسارا أسجسكم جروية أنا اسمه ذكري إنه حاول جرودين تلوين اللي جاي هو اللي وضعيان ربا أنا وركي دواكاس halkaas ayaan ku soo gunaanada idinku aad iyo aad ugu mahadsan waxaan hilmaamay oo inaan xusa u baahanahay dhalinyarta waxaa jira dad fara badan oo jaamacada ka soo baxay oo aan employment shaqo la'aan dadka in shaqo yar la siiyo ama lacag yar handout la siiyo waxa ugu qiimo badan in la siiyo shaqo abuur loo suubiyo qofkana subax walba malaay siisid waxa ka qiimo badan malaayga si loola soo baxay in la baro cid walba waxa jooga shukran magan Allah tan ugu dambayso waxaan dhihi rabay cid walba maanta weytaan leh cid walba dadka baadiyaha joogaariga la jira laba ruux saddex ruux oo dhalinyarta oo jaamiciin ayaa jira wadanka waxa ka jirta shaqo la'aan bahan ragga marka madaxda waxa laga rabaa bedelka odayga waraan qara ama finno ama lungu ku noolaay 200 300 la siin lahay wiilka 50 bishi qaatay in loo qoro taas ayaa ugu fiican ama gabar bishi 60 qaadata in loo qoro ayaa ugu qiimo badan in wax yar oo macno leh cariishka isku dhista أما دينت باهرت أسقط تسكيب بحي تاسع وفيعا إن شاء الله بالله كرسي المسيح فنقول إن هي بصار جنانو هاي تاي youth empowerment and employment على ده إن عند اللي يرتش شقاء الرادنا أنا شقاء الرسل بينا أدو الله سبحانه وتعالى دولد وأنا قانا سبحانه يقولنا قانا national government وحنا قتل سبحانه يقولنا قانا حفيسة هذا إن هم حلقة من دولنا تلو أنا رنتا ساموتي صود وارا تلدي إلهي كسوكو قعنتينا يكو جرتا أنا وركم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.